mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa xaqiijiyey in la dilay sarkaal ka tirsanaa xeero ciidan oo toddobaadkan uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah weerarkaasi oo uu sheegtay ururka al-shabaab waxaa soo baxayey warar sarkaalkaasi la xiriirinaya inuu ku lug lahaa weerarka hase yeeshee waxaa sida ninkaasi uu u dhintay shaki ka muujinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cumar geedi wasiir ku-xigeen maxamed cumar geedi ayaa sheegay in ciidan ka tirsan maamulka jubba ay ninkaasi dileen iyaga oo qarinaya kulug lahaansho laga yaabo in maamulka jubba weerarkii ciidanka lagu laayay uu wax ka ogaa wasiir ku-xigeen maxamed cumar geedi ayaa arrimahaasi uga warramay waryaheenna jamaal axmed cusmaan. bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihiin v o a iyo degeystayaashiina intaba marka waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa waaye marka hore inaan u tacsiyeeyo ummadii soomaaliyeed ee u badneed ciidamada xoogga dalka oo ku geeriyooday ama ku dhaawacmay meesha samar allah ka siiyo intii dhimatay ummadii waalidiintoodii iyo dhammaan qaranka inta kalena allah caafiyo. horta waxaan rabaa inaan waxaa shaki badan ka jira barnaamijka in cadowga ummadda soomaaliya ay sameeyaan shaki kuma jiro laakiin in hogaanka sare ee maamulka raaskambooniyiinta ay ku lug leeyihiin ayaa yani ka jira tuhum fara badan maxaa yeelay meesha ciidanka waaradeeya ee hubka haysta waa maleeshiyaadka raaskambooni meesha waxaan ognahay in ay joogeen ciidamo lagu diyaarinayay muddadan dambaba meesha waxaa yeelay labada gaari oo meesha yaalay mid wuxuu ahaa gaari cabdibila ah iyo gaari nooha ah gaariga noohaha yani waxaa sheegay inuu lahaa ninka cabdibile la yihahda ee idaacadda ka hadlaayay meesha taliyaha ka ah waxayna u badan tahay hadda gaariga isqarxiyay inuu gaariga isaga yahay maadaama marka tuhmo badan ay jirto waxaa shaki badan sii abuuray ninkii lagu tuhumay ama tababaraha meesha ka ahaay ee la yidhi waa la qabtay ee loo yimid ee gaariga ninka madaxweyne ku-xigeenka sheegtay ee lagu dheero iyo sheecabdi ninka la yihahda ee gudoomiyahooda baarlamaankii maxaa la jiri baarlamaanka soomaaliya ou laalay yani gudoomiyaha u ahaa iyo ninka la yihahda cabdi baaley iyo iftiin xasan baasta inay meesha joogeen oo gaarigii lagu dheero lagu qaaday ninka asagoo xiran madaxtooyada la geeyey laisku qabsaday amniga yaa sugaaya cad sugaysa malaha iyo ninkan madaxtooyadaha joogay aan loo gudbin xarunta hay-adda maleeshiyaadka raaskambooniyiinta nabasugudooda ay leedahay marka lagu dheero uu damaanad qaaday in loo gudbiyo xaruntaas lana dhaafiyo madaxtooyada isla markiina haana ninkii la dilo macnaheeda waxay abuurtay tuhum weyn. waa gartay laakiin weerar noocan oo kalea marka hadda aan kasoo tagno kismaayo goobtii lagu tababarayey askarta waxaa jirta in al-shabaab sidoo kale weeraro ay ka geysteen meelo kale oo kala gedisan oo ka xasaasiyad badan oo ka amniga sida loo sugayo ka badan meesha hadda ay weerar ka geysteen sida madaxtooyada soomaaliya oo halkii soomaaliya laga maamulayo oo dhan ay galeen marka weeraro noocaas oo kale marka ay dhacaan adiguma waxaad aaminsan tahay inay jiraan dad gudaha jooga oo u fududaynaya arrimahan oo kale tusaale ahaantii madaxtooyada oo kale. adeer waa laogahay maamulka nimanka la yihahda argagixisada waxyaabaha ay ku kacaan haddaanay helin dad fududeeyo ma suura gasheen waad ogtahay madaxtooyada markii weerarka lagu qaaday ramadaankii hore waxa weeye waxaa fududeeyey sida laga warqaba nin ka tirsanaa madaxtooyada joogay akhirkiina waa la xukumo waa la dilay sidaan ognahay marka waxaan rabnaa in la xaqiijiyo arrintaa iyada ah si aysan usoo noqon ramadaankii hore halkan waxaa ka dhacay nin meesha joogay u shaqeynaya shirkadaha isgaarsiinta mid kamid a oo kuna yani madaxtooyadana xiriir la lahaa ayaa fududeeyey waa tahay akhirkiina waa la toogtay marka waxaan rabnaa in aysan ummadda inteeda dambe si loo badbaadiyo cadowga ku dhex jiro waa in laga qabtaa. sidee markaa is leedahay ka mid yahay waa tahay marka maxamed cumar saaxatu wasiir adigoo mahadsan sidee baa is leedahay marka arrimahan oo kale waa looga hortegi karaya wax oo aad soo jeedinayso ama is leedahay sidaas ayaa wanaagsan ama sidaan ayaa ila quman oo dhacdooyin mustaqbalka laga yaabay inay dhici lahaayeen looga hortegi karayo aad soo jeedinayso ma jiraan? adeer meesha iyada ah ee sida ammaankeeda u sugnaa iyo 3 sano lama marin jidka asaga waxaa laga leexinaya meesha la yihahdo goob weyn ayay ka leexdaan ummadda ka timaada xamar jidka xamar ka yimaado weye 3 sano lama marin jidka waxaa ka baxeedo waa meel ciidan oo u gaar ah marka ma ahan meel furan meesha iyada in gudaha loo gala ciddi fududaysay waxa weeye toogatane ninkii mataqaana informationka laga heli lahay haddii uu ku lug leeyahay hataa isdhihi maayo aniga waa ku lug leeyahay banaanka ka ahaa midkood ma dhihi maa laakiin yani habka loo toogtay ninka asagoo nabad la qabtay iyo sida gaariga meesha uu ku tegay iyo gaariga inuu ahaa gaari sii joogi jiray jaamacadda oo jaamacadda mataqaana yani si fudud usoo geli jiray waxaan rabaa in si weyn loo xaqiijiyo si
ay ka qayb qaateen hay-ado caalami ah iyo dawladda dhexe ay ka qayb qaateen waa in loo baaraa. waa tahay ku dhex jiro ummadda si uusan kuwa dambe iyo maamulka intiis kale uusan dhibaateyn.